الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله waxaan bilaabi doonaa taxane silsilada ah oo ku saabsan maskaxda haday tahay maskaxdu sida u shaqeyso halka ay ku taalo xanuunada ku dhaca sida lagu garto sida lagu daweeyo iyo daraasadihii ugu dambeeyay maskaxda ku saabsan hadii la yiraahdo marka arinta isweydiinta leh waxay tahay maskaxda waxyaalaha ku doortay waxa kamida ay isweydiinayso saddex arimood waa marka koowaad maskaxdu waa xubinta jirka oo dhan ugu shaqada badan leh ee tin ilaa cirib maamusha waa marka koowaad fahamka laga haystana aad u yar yahay dhakhtar ahaan iyo cid walba ahaanba waa marka labaad waxa aad u soo badanaya xanuunadii dhimirka ee bulshada loona noolayd oo maalinta ka dambaysa aad u soo siyaadaya arinta saddexaad ugu kaliftay waxay tahay shakhsiyan inay maskaxdu tahay xubin aan ilaa yaraantii xiisan jiray haddana aan takhasus ka wado marka saddexda arimood bay ugu kalifeen aan maskaxda u biyeysto hadii la yiraahdo marka caawana waxaynu gali doonaa hordhac yar oo ku saabsan maskaxda oo in yar oo koobana oon badnayn hordhac intaan galin waxaan ka cudur daaranayaa in kelmadaha qaarkood haddaan Soomaali ku waayo ama aan garan waayo in aanan la yaab lahayn oo Soomaaliga aan aad la isugu hawlin darteed oo eriyada qaar lagu garanaynin marka intii aan wax Soomaali ku sheegi karo waan ku sheegi doonaa midkayga hoos baxsadana hal igu dulqaataan ma jecelina luqad kale wax ku sheego marka maxay hayday maskaxdu waa xubin dadka badankoodu garanayaan halkay ku jirtaa waxa weeyaan madaxa waa walax jilicsan aad u jilicsan oo sida xaydxaydho kala ah oo boqolkiiba 60 waxay ka samaysan tahay dufan waxa maadaama ay tahay san hore soo sheegay xubin aad u muhiim ah jirka tin ilaa cirib maamulaysa waxa laga maarmaan noqotay inay ilaalinteeda marka waxa ilaaliya oo dhinac walba kaga wareegsan lafaha madaxa ilaaliyo sidii wax ku gaaraan waa adag tahay lafaha madaxa ka sokow maskaxda waxa ku wareegsan xubab yar yar oo lafaha madaxa iyo u dhaxeeya maxay maskaxda lafteedii oo la yiraahdo meninges maskaxdu waxay ku sii dhex jirtaa biyo la yiraahdo CSF ama cerebrospinal fluid oo maxay hayday meesha ku haya dhaqdhaqaaqana u diida biyahaas waxa kale oo ay jirka ku daraan maxay hayday maskaxda way nafaqeeyaan waxyaalaha toxic iyo waxaana way ka barxaan biyaha ay maskaxdu ku dhex jirtaa meesha ku ilaaliyo 6 saacadood ama 7 saacadood markastoo kamida waa la bedelaa oo kuwa cusub bay maskaxda lagu soo daayaa kuwii horena waa laga saaraa alla amarkii maskaxda biyaha yar ku jira in yar hadii uu kor u kordho xadkoodu waa caafimaad darri maskaxda ku keenayaan haduu hoos u dhacana waa sidii oo kale marka maxay hayday xubinta ama waxaan u jeedaa maxay hayday maskaxda abuuritaankeedu wuxuu bilaabmaa bisha koowaad ee ilmuhu calool galo meelaha wiiga afraad ayuu bilaabmaa maxay hayday markuu sida ilmuhu soo dhasho culayska maskaxdu waxa weeyaan 500 gram ama nus kiilo markuu qofku weynaado inteenan leekaado ama uu qaan gaadho maskaxda culayskeedu wuxuu noqdaa 1400 gram ragga dumarka in yar buu ka yariyo 30 gram meelaha 40 gram laakiin sitaa macnaheedu ma sheegayso maskax badnaan oo sida loo kala maskax weyn yahay looma kala maskax badna intelligence-ga waxyaalo kala maamula tusaalahaan waxaad soo qaadataa xayawaanada ugu maskaxda weyn leh oo kamid yahay nibiriga iyo maroodiga iyo aqligooda waa la arkay marka la barbardhigo inkastoo bini'aadamka la barbardhigi karin marka la barbardhigo xayawaanada kale maskaxdeena caadiga jirka waxay ka tahay 2% waa xad aad u yar 2% ayay ka tahay laakiin se oxygen-ta jirka soo galaysa 20% baa kalideed isticmaala nafaqada iyo sonkorta iyo waxa jirkeena iyaguna soo galaya 5% kamida waxa isticmaasho oo kalideed qaadata maskaxda ayaa qaadata maskaxdu sida uu samaysan tahay waa si cajaa'ib oo Ilaahay ugu talagalay waxay ka kooban tahay ay wadataa in ku dhow 100 bilyan oo neuron waa tiro aad u badan oo markaad eegto waxay 14 jeer ka badan tahay bulshada maanta caalamka ku nool ah 7 bilyan ayay xididada yar yar oo wareegsan baa maskaxda ku dhex jira oo aad u urursan sida dunta kale ah hadii la kala bixiyo xididada masaafadoodu waxay noqonaysaa 640 kilomitir wax ku dhow waa masaafada u dhaxaysa maxay hayday ama ay ku dhowday Garowe iyo Hargeysa u dhaxayso masaafo aad u foga maskaxda tamarta iyo energy-ga ay soo saaraysa waxay ku filan tahay in hal laambad shido meelaha 25 waada warbixinada iyo information-ka maskaxda dhex maraya xawaarahoodu wuxuu gaari karaa 630 kilomitir saacadii waa xawaare aad u sareeya maskaxda waxa dhiigga waraabiya 4 xidid laba xagan beer xagan hore soo mara qoorta xageedan hore iyo laba xagga dambe mara labada xidid ee maskaxda xagee qoorta xageedan hore soo mara maskaxda waraabiya dhiigga maskaxda gaarsiinaya waa 8%
labaatanka kale waxa gaarsiiya labadan xidid ee xagga dambe mara labadan xagga hore ka tagay iyo labada xagga dambe ka yimi waxay ku kulmaan meel la yiraahdo goobada wil halkaasay isugu tagaan oo ay maskaxda ka gaadhaan maadaama oo maskaxdu ay isticmaalayso dhiig aad u badan oo yarayn haddii maxay hayday 10 ilbiriqsi ama 10 second uu maskaxda ka istaaga dhiigaasi qofku uu miir beelaya kooma inuu gala suuragala 20 second oo kaliya hadduu ka istaago 20 ilbiriqsi shaqadii maskaxda ka socotay electric activity ka socdo dhan way istaagayaan 4 daqiiqo oo kaliya ama 4 minute haddii dhiigaasi maskaxda ka istaago waxa soo gaaraya dhaawacaan ka soo kabasho lahayn baa maskaxda soo gaaraya haddii maxay hayday uu dhiigaasi ka istaaga maxay hayday 10 daqiiqo iyadana waaba dhimasho oo waxa la galaya qofkii kama soo kabanayo maskaxdu saddex qaybood oo waaweyn bay ka kooban tahay sida ugu muhiimsan ee loo qaybin karo waa sida qaybta koowaad waxa la yiraahdaa cerebellum waa ra qaybta labaadna waxa la yiraahdaa cerebellum oo waa la qaybta saddexaadna waxa la yiraahdaa brainstem af Soomaaliga waxa ku noqonaysaa jirida maskaxda qaybta koowaad ee cerebellum af Soomaaliga ugu dhow in la yiraahdo maskax weynta maadaama ugu weyn tahay qaybta labaadna waxa la yiraahdaa cerebellum oo qaybtaasi ku soo xigta maskax yarta la yiraahdaa qaybta saddexaadna waxa la yiraahdaa brainstem oo ah jirida maskaxda xaggeeda hoose maadaama ay ku taalo qaybta koowaad baynu galaynaa aan yiri cerebellum baa la yiraahdaa jirka maskaxda qofka bini'aadmiga waxay ka tahay 80% ilaa 85% inta u dhaxaysa waa inta ugu weyn waxay markaa ka kooban tahay qayb bidix iyo qayb midig oo si talantaaliya ayuu shaqeeyay maadaama qaybtii maskaxda ugu weyneed tahay maskaxda cabirkeedana kaliyeed baba laga qaadan karaaba laba qaybood bay ka kooban tahay qayb bidix iyo qayb midig qaybta bidixdu ee maskaxda waxay xukuntaa jirka intiisa midig tusaale ahaan kale qaybta bidix haday wax ku noqoto qaybta lugta ama gacanta ama isha midigta ayaa ku istaagaya sidoo kale maskaxda haday qaybta midig wax noqoto waxa shaqadii joojinaysa jirka intiisa bidix lug ha noqoto gacan ha noqoto il ha noqoto sidaas oo kale talantaaliba u shaqeeyaan qaybtan maskaxda ugu weyn ee aan ku yiri cerebellum baa la yiraahdaa maskax weyn waxyaalaha xukunta waxa kamid inay turjinto dareenada jirka soo gaadhiya haday tahay maqal haday tahay dhadhan haday tahay ur haday tahay taabasho waxa soo dhan waxay xukuntaa dareenka qofka inuu wax dareemo inuu qiiroodo oo caadifad dareemo inuu wax jeclaado inuu wax naco waa qaybta xukunta waxa kale oo ay xukuntaa go'aan qaadashada waxa kale oo ay xukuntaa maxay hayday fikirka oo qofka caadiga ah maskaxdiisa maalintii ama 24 saacadood waxa ku soo dhaca 50,000 ilaa 70,000 oo fikrad buu isweydaarsadaa qofka caadiga waxa kale oo ay xukuntaa maxay hayday sababaynta inuu qofku wax sababeeyo hadii wax loo sheegaan iska qaadan wada sababtay bay ku dhici kartaa waxa kale oo xukuntaa xalinta dhibaatooyinka inuu qofku dhibaatooyinka la soo darsa xaliyo waxa kale oo xukuntaa waxa la yiraahdo qorsheynta inuu qofku wax qorsheeyo waxa kale oo ay xukuntaa maxay hayday qofka shakhsiyadiisu sida ay noqonayso waxa kale oo ay xukuntaa fahanka inuu qofku wax fahmo iyo wax barashada waxa kale oo ay xukuntaa xasuusteedu mana buuxsamayso khalad yar baa jiro inta badan aad meelaha ku arkayso qofka bini'aadmigu intuu nool yahay maskaxdiisa wuxuu isticmaali karaa 10% arintaasi saliya raatoona male sababtoo ma jiro wax lagu qiyaasi karo qofku intuu maskaxdiisa cabiray intuu isticmaalay laakiin shayga kaliya la isku waafaqsan yahay waxa weeyaan maskaxdu inaanay weligeed intuu qofka bini'aadmiga jiro aanay buuxsamin intuu caafimaadka qabo iyadoo xanuun ku dhaco mooyaane qaybta labaad ee maskaxda aynu soo galaynaa waxa la yiraahdaa cerebellum af Soomaaliga waxa la yiraahdaa maskax yar waxay ka kooban tahay 10% oo tii hore aad bay uga yartahay haddana neyroonadii 100 bilyan ah ee maskaxdu wadatay 50% kamid ah ayay iyadu wadataa oo waxa weeyaan maxay ahayd 50 bilyan oo neyroon meelahaasay xukuntaa ayay wadataa oo iyaduna qayb kale oo muhiim ah weeyaan waxyaalaha ay xukunta waxa kamid ah qofku istaagan uu istaagiyo jirkiisu isku dheelitirmayo waxa la yiraahdaa posture-ka afka qalaad ee xukunta maamulayo waxa kale oo ay xukuntaa maxay ahayd isku dheelitiranka jirka qofku marka bini'aadmigu socdo ma dheeliyo qofka caadigii maxay hayday oo kolba dhinac uma dhaco inaanu kolba qofku dhinac u dhicin waa qaybta xukunta qaybtan waxa aad u saameeya khamriga ama alcohol oo sababta qofku markuu khamriga cabsan yahay uu dhacdhaco oo controlku uga lumo qaybta saddexaad ee maskaxda oo qaybta ugu yar waxa la yiraahdaa brainstem afka qalaad af Soomaaliga waxa la yiraahdaa jirida maskaxda waa qaybta xagga hoose ku taala waa qaybta xiriirisa maxay hayday xangulada iyo maskaxda inteeda kale qaybtan waxa ay ku shaqo leedahay oo ay xukuntaa waxyaalaha jirkeena waxyaalaha maskaxdii go'aankeena ka madax bannaan aanaynu xukumi karin tusaale ahaan kale waxa kamid ah garaaca wadnaha waxa kamid ah cabirka dhiigga waxa kamid ah neefsashada waxa kamid ah maxay hayday hindhisada
waxa kamida maxay ahaydee hamaansiga, waxa kamida maxay ahaydee waxlaqida, wax kasta oo aanad xukumi karinin. Waxa kamida ilgibirsiga waxa la yiraahdaa ama ilbiriqsiga, waxaasoo dhan ee qofka bini'aadmigi xukumi karinin neefsigu kamid yahay ayay xukuntaa. Saddexda qaybood ee yaryar ayay maskaxdu ka kooban tahay. aad baan soo koobayaa sababtoo ah dadkuna hadalka badan ma jecla. dadka inta cilmi ahaan oo takhasus u diyaarinaysa iyaga si gaar ah baan u tilmaami lahaa. waxaan u tilmaami lahaa 3 buug ama ilaa 10 buug baan hayaa, laakiin saddexda buug ee ugu muhiimsan aan oran lahaa dib ugu noqda waxa weeyaan buugga koowaad waxa la yiraahdaa clinical neuroanatomy, waxa qoran la yiraahdaa Fishram Singh. haddadan waan hayaa, cid kastoo baahan way iga soo doonan kartaa, kadibna way soo celin doontaa. buugga labaad isla magacaas wataa clinical neuroanatomy baa la yiraahdaa, laakiin waxa qoran la yiraahdaa Stephen Wagasman. buugga saddexaad aan idin kula talin lahaa inaad akhridaan qolooyinka takhasuska diyaarinaya ama cilmigan xiisa gaar u qaba waxa la yiraahdaa functional neuroanatomy, waxa qoran nin kale oo la yiraahdaa Walter Hindelman. saddexda buug baan dadka wax akhriyo kula talin lahaa. dad waxa jiraan akhriska xiiseynaynin laakiin daawashada iyo dhageysiga ku fiican. dadkana waxaan kula talin lahaa inay dhageystaan taxanaha uu soo saaray wariyaha caanka ah Charlie Rose oo ah taxana la yiraahdaa Brain Series oo maskaxda ka hadlaya. waxa isku keenaya maxay ahayd dhaqaatiirta waaweyn ee takhasuska u leh maskaxda adduunka iyo Mareykanka. marka iyadana cidii u baahan fiidiyoyadeeda waan siin karaa xilli kasto oo ay u baahdaan. intaasaan maanta ku soo koobaya waa hordhac. xaruntan caafimaad qabka maskaxda klinikeenuna wuu cusub yahay. marka maadaama cusub yahay wixii aad tala noo haysaan, wixii maxay ahaydee aad wax ku kordhin ku samaynaysaan, wixii aad nasaxaysaan aad baan idiin soo dhaweynaynaa. barnaamijkeenuna wuxuu noqon doonaa haddii aynu noolaadna bille insha Allah maalmaha dambe maskaxdeenu sii gudageli doona, xanuunadeedaynu sii geli doonaa. waxaan mahad gaar u celinayaa oo fiidiyogan iyo isku dabaridkan sameeyey saaxiibkayga yar ee xoosh yar oo Xubul Kariim channel-kana leh. channelkiisana waxa la yiraahdaa Xubul Kariim. marka subscribe gareeya, cilmiyo wax kasta Ilaahay way idinka siin doona haddii la yiraahdo. qofka labaad ee u mahad celinaya waa Cadnaan Yare. Cadnaan Aadan Yuusuf isna qayboyin ka qaatay. ka saddexaadna waxa weeyaan Cabdixakiin Gaas oo hadda naga maqan. ka afraadna waxa weeyaan maxay ahaydee Mustafa Yaro mashiinka ciyaartoyga weyn. marka kulanti dambe haddii la yiraahdo sidaa iyo isku soo noqo dambe. amaana Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.